toddoba hab oo la caddeeyey oo aad qof kasta jacayl ugu abuuri karto. Digniin marnaba kama mas'uul ahi haddii aad si xun u isticmaasho xogta aan muuqaalkan kugu sheegi doono. Ujeeddada aan muuqaalkan kugu soo bandhigayaa waa ujeeddo aqoon kororsi oo keliya, taasi oo ah inaad wax badan ka fahanto cilmi nafsiga, sidoo kalena aad guurkaaga ka ilaaliso inuu burburo amaba fashilmo. waa inaanad u isticmaalin xogtan inaad qof ku soo jiidato adoo kale dana gaar ah amaba aanad ku khiyaamin inay dadku jeclaadaan. haddii aad si qaldan u isticmaasho ha ii iman mar dhow, hana igu eedeen waxaad fashay maadaama aanan ka mas'uul ahayn waxaad samayn doonto. xaqiiqda ku aadan inaad qof jacayl ku abuuri karto iyo in kale. waxaa jira websaydo iyo janalo badan oo aanan jeclaysan oo dadka ku celceliya inay u sheegaan habab iyo farsamooyin uu qof kastaaba hore u ogaa amaba uu si fudud u qiyaasi karo. muuqaalada aan badanaa wax ka bara channel kugu soo gudbiyaa waxay aad ugu taxalluqaan cilmi nafsi, kaasi oo aan kugu soo bandhigo hab fudud oo uu qof kastaaba fahmi karo. inteena ugu badani waxaynu aaminsannahay in jacaylku yahay wax si dabiici ah u dhaca oo aanu qofku siba u kantarooli karin. si kastaba ha ahaatee, xaqiiqda argagaxa lihi waxay tahay in jacaylka iyo nacaybka labadaba ay maskaxdu si buuxda u kantaroosho. jacaylku wuxuu la mid yahay dareen kastoo kale oo aad dareento, waana la kantarooli karaa si la mid ah sida ay u jiraan habab iyo farsamooyin loola tacaalo stresska ama diiqadda, ayay sidoo kale u jiraan habab kaa caawin kara inaad qof jacayl ku abuurto. inkastoo laga yaabo in xogtaan muuqaalkan kugu sheegi doona aanay markasta 100% kuu shaqayn, haddana ugu yaraan waxay libinlaabaysaa ama saddex jibaaraysaa fursadaha aad qof jacayl ugu abuuri karto. waa kuwan hababka aad qof jacayl ugu abuuri kartaa. 1. isku day inaad buuxiso qofka baahiyihiisa. marka ay dadku raadinayaan lamaane cusub, waxay si aanay ka warhayn u raadiyaan qof leh sifooyin iyo tilmaamo la mid ah kuwa ay naftooda ku jecel yihiin iyo sifooyin ka duwan kuwa ay naftooda ku neceb yihiin. tusaale ahaan, haddii uu qof caqli badan yahay balse uu dareemo hooseyn iyo kalsooni darro badan, qofkaasi wuxuu raadsan doonaa lamaane caqli badan isla markaana isku kalsoon. haddii qofkani uu yahay qofka aad beegsanayso, inaad iska dhigto qof si aadaha iskugu kalsooni aad ayay faa'iido kuugu noqonaysaa, sababtoo ah waxaad qofka ka haqabtiraysaa wuxuu baahi u qabay, waxaanad qofka maskaxdiisa u diraysaa fariin ah waxaan hayaa waxa aad u baahan tahay. intaa waxaa dheer, isku daygaaga ugu fiican u samee inaad qofka tusto inaad wadaagtaan sifooyin, dabeecado iyo waxyaabo aad wada xiisaysaan. 2. waafaq shuruudaha uu qofku wax ku doorto. qof kasta oo inaga mid ah waxaa maskaxdiisa ku jira liis shuruudo ah oo uu qofka uu jeclaanayo ka rajeeyo inuu yeesho ka hor inta aanu qofkaa jeclaan. inkastoo inaad liiska shuruudaha waafaqdaa aanay ku damaanad qaadayn in qofkaasi uu ku jeclaado, haddana in aanad mid ka mid ah shuruudaha buuxini waxay hubaal sababaysaa in aanu qofkaasi ku jeclaan. tusaalayaal ka mid ah shuruudahani waxay noqon karaan: qofku waa inuu noqdaa qof aan balwad lahayn, waa inuu noqdaa qof diin leh, waa inuu noqdaa qof aqoon leh iyo kuwo kale oo la mid ah. ka hor inta aanad isku dayin inaad qof jacayl ku abuurto, samee baadhis yar oo isku day inaad ogaato qofka backgroundkiisa iyo waxyaabaha uu xiiseeyo. intaa markaad ogaato, isku day inaad shuruudaha buuxiso. haddii aanad sidaa samayn, waxaa laga yaabaa in hore lagaa diido. 3. tus qofka inaanad la mid ahayn qofkii ay hore xidhiidhka u lahaayeen. haddii uu qofku xidhiidh hore u lahaa oo uu xidhiidhkii si xun ku dhammaaday, waxaa aad u suurtagal ah inuu qofku bedelo shuruudaha uu ku dooranayo qofka uu rabo inuu xidhiidh la wadaago, isagoo xasuusan qofkii hore wixii uu ku sameeyey. markaad qofka tusto inaanad la mid ahayn qofkii xumaa ee uu xidhiidh kala lahaa, waxaad fursad weyn u helaysaa inaad qofka qalbigiisa degto. 4. kor u qaad qiimahaaga. haddii ay jiraan asxaab aad labadiinuba wadaagtaan, waxaad leedahay nasiib badan, sababtoo ah waxaad qofka maskaxdiisa u brograamin kartaa si fudud. inta badan ee ay saaxiibada aad wadaagtaan ay kaaga hadlaan si fiican qofka hortiisa, iyo inta badan ee ay ku ammaanaan si cajiib ahi, waxay badinaysaa jaaniska aad ku qabsanayso qofka maskaxdiisa ee aad meel ku yeelanaysa qalbigiisa. sababtoo ah qofku wuxuu u maleeyaa inuu qof aad u qiimo badan yahay markuu arko dadka kale oo qiimaynaya. dabcan arrinkanna waxaad kala hadlaysaa saaxiibada, waxaana diyaarinaysaa qorshaha. 5. badanaa ha lagu arko. waxaa la caddeeyey in dadku ay badanaa ka doortaan qofka ay xidhiidhka la samaynayaan mid ka mid ah kuwa ay inta ugu badan arkaan. qofka oo aan muddo dheer la aragna badanaa waa la iloobaa. sidaa daraaddeed, qofka u oggolow inuu in badan ku arko si aad maskaxdiisa u qabsato. 6. dhoolla caddaynta. waxaa la caddeeyey in raggu ay aad uga helaan hablaha dhoolla caddeeya ee furfuran marka la barbar dhigo kuwa aan dhoolla caddayn. dhinaca kale, waxaa iyana la caddeeyey in dumarku ay aad uga helaan ragga aan inta badan dhoolla caddayn marka la barbar dhigo kuwa dhoolla caddaynta badan ee mar kasta qosla. sidaa daraaddeed, badanaa dhoolla caddee haddii aad gabarh tahay,
haddii aad wiil tahayna wax yar dhoolacdee. 7 adigan ku gaar ahay tus qofka aad beegsanayso inaad leedahay options badan oo ay jiraan dad kale oo ka hela balse iyadu ama isagu uu yahay qofka aad jeceshahay ee aad dhamaantood ka doorbido. fadlan si qaldan ha u isticmaalin xogtan waa inaad u isticmaasho oo kaliya haddii uu dhabka yahay xiriirku, balse haddii aad ujeed kala leedahay aanad isticmaalin. inaad dhaawacdo dareenkoodana adigoo isla guul ka gaadh ay tahay wax aad uga fog saxsanaanta. waxaan rajaynayaa in muuqaalkani ku caawiyey. fadlan like saar, subscribe si aan u gaadhno 200,000 oo subscriber, lana wadaag asxaabtaada isleedahay wuu caawin karaa muuqaalkani. waanigoo Cabdirasaaq Faarax ah, tan iyo kulankeena kan xiga. amaana Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.